wuxuu ahaa derbi jiif sidoo kale dawarsada ah. gabar ayaa lacag yar ku caawisay. lacagtii ay siinaysay waxaa si kama ah uga raacay faraanti diamond ah oo boorsada ugu jiray. maalmo kadib ayuuna u celiyey faraantigii gabadhii. tilaabadaas ayaana beddeshay noloshiisii oo saameyn weyn ku yeelatay. sheekadiisa oo dhammaystiran ayaan rabaa inaan idinla wadaagee. soo dhowaada saaxiibayaal, hadday tahay markii ugu horraysay eed na soo booqatay na soo raac, sidoo kalena muuqaalka like saar, waa mahadsan tahay. Saaraa Daalin waxay soo aaday suuqa si ay uga soo adeegato, balse jidka waxay ku aragtay nin derbi jiif ah oo dawarsanayo, waxayna go'aansatay inay lacag yar ugu riddo weelka uu ku dawarsanayo. lacagtii markay ugu ridday way iska baxday, waxayna sii qabsatay danaheedii ay suuqa u imaaday, balse markay xaafadda ku soo laabatay waxay boorsadii ka weysay faraantigii diamondka ahay oo boorsada ugu jiray. faraantigu wuxuu ahay faraanti guur, waxayna gashatay boorsada maalin ka hor kadib markii uu farta dhaawac ka soo gaaray. in ay farteeda ka bixiso faraantiga guurka waxay ahayd arrin adag, haddana waxay isleehayd boorsada ku ilaali intay gacantu kaaga bogsanayso, balse inuu ka lumo waxay ahayd murugo, waayo inuu qaali yahay waxaa uga darneed wuxuu u ahaa astaan jeceyl iyo astaanta wadajoogga ninkeeda. Saaraa aad ayay uga murugootay arrinkaas, waxayna garan weysay meel ay ka raadiso. way fikirtay, waxayna ogaatay halka mar oo ay furtay boorsadeeda inay ahayd markii ay ninka derbi jiifka ah lacagta siinaysay. ayadoo aad u murugaysan oo ilin ka socoto ayay ninkeeda la wadaagtay arrinkii, wuxuuna ku dhahay dhib ma lahan, ninkii aad lacagta siisay meeshuu fadhiyey ku laabo, laga yaaba inaad ka soo heshee. Saaraa way soo baxday ayadoo niyadda iska leh, kollay nin derbi jiif ah intuu faraantigaas arka kuuma soo celinayee isaga soo samar. waxay imaadday meeshii ninka uu fadhiyey, waxayna ugu imaadday isla ninkii oo weli fadhiyo, waxayna ku dhahday ima xasuusatid baan filaa, waxaan weelka kugu riday alaab qaali ah ee ma aragtay. ninkii ayaa ku dhahay adiga miyaa qofka faraantiga diamondka ah ka tegey, wuxuuna u soo saaray faraantigii. Saaraa way aamini weysay inuu weli haayo faraantiga, waxayna ku noqotay filanwaa. ninkii ayay u mahad celisay, waxayna ogeed keliya waad mahadsantahay inaysan ahayn abaalgudkiisa. ninka derbi jiifka ah wuxuu magaciisa ahaa Billy Ray Harris, wuxuuna nolosha derbi jiifnimada ku jiray 16 sano. Billy markuu arkay faraantiga diamondka ah oo meesha ugu jiro, wuu garan waayey cidda iska leh, wuxuuna u geeyey qolada gado dahabka, waxayna u sheegeen inay ka siinayaan $4,000. Billy wuxuu dhahay ma gadanayo, wuxuuna soo qaatay faraantigii, wuxuuna ku soo laabtay meeshii. wuxuu dhahay waxaan u gadan waayey, anigu malihi faraantiga, waana qalad inaad gadato, laga yaabo qofkii iska lahaa inuu ugu soo laabto oonu idhaho alaabtaydii ma aragtay. qof derbi jiif ah haddana dawarsada ah inay soo marto fursaddaas dahabiga ah haddana uu iska dhaafo, waa wax derbi jiifka naadir iyo dhif ku ah. asagoo u baahan lacagtaas ayuu haddana iska diiday inuu gato, wuxuuna beddelkeeda sameeyey inuu u celiyo qofkii iska lahaa. Saaraa way aamini weysay ninkan baahan inuu u soo celiyey faraantigan diamondka ah oo qaaliga ah, waxayna dhahday keliya waad mahadsantahay inaan ku dhaho uma uusan qalmin ee ka badan ayuu u qalmay. Saaraa waxay u tagtay ninkeedii, waxayna u sheegtay arrinkii. ayada iyo ninkeediina waxay go'aansadeen inay arrinka Billy la wadaagaan dadka oo ay soo dhigaan baraha bulshada sheekadiisa, sidoo kalena ay lacag u ururiyaan. arrinkii markii la wadaageen dadkii, dad badan ayaa ka helay tilaabada uu Billy sameeyey, waxayna aad ula dhaceen daacadnimadiisa. Saaraa iyo ninkeeda waxay sameeyeen page GoFundMe ah, wuxuuna taageedkoodu ahay lacagta ay rabaan $1,000, waxayna dhaheen lacagta ugu yar oo aan ugu abaalgudi karno intaas ayay noqon kartaa haddii aan ka badan u helinba. Billy dad badan ayaa ka heleen daacadnimadiisa, waxayna u ururiyeen lacag badan oo weliba aad uga badan taageedkii ay ugu tala galeen. 3 bil markii ay lacagtii ururinayeen, waxay lacagtii noqotay lacag aysan isdhehen waad ururin kartiin, waxayna noqotay $190,000. waa lacag aad uga badan midday isdhahayeen waad u ururinaysaan. lacagtii ayay u dhiibeen Billy, waxayna dhaheen adigan ku ururinay, wuuna aamini waayey. nin derbi jiif ah oo intaasoo lacag ah loo dhiibay waxay ku noqotay waxa uusan filanayn. Billy wuxuu gatay gaari, sidoo kalena guri ayuu gatay, wuxuuna qabsaday abuukaate la maareeyo lacagtan faraha badan. hal mar ayay noloshiisii isbeddeshay, wuxuuna hal mar noqday mid dabaqadda sare fuulo. 16 sano oo uu ku jiray nolol adag, baahi, hooyla'aan iyo rafaad, noloshiisii hal mar ayay isbeddeshay oo ay iftiintay. intaas keliya kuma ekaane, kadib markii ay sheekada Billy noqotay mid ay TV-yadu soo qaataan, waxaa arkay sawirkiisii Billy faamiligiisii oo u haystay inuuba dhintay. Billy faamiligiisu waxay dhaheen 16 sano ka hor ayaa noogu dambaysay Billy, waxaana u haysanay inuuba dhintay mar hore, balse markaan aragnay sawirkiisii waan garanay, isla markii ayayna soo raadiyeen. Billy iyo reerkiisii oo ay mar hore isugu dambaysay dib ayay u kulmeen, waxayna u ahayd farxad gaar ah. Billy 2 farxad ayuu helay, inuu ka baxay noloshii adkeed iyo baahidii, iyo inuu helay faamiligiisii ay mar hore kala lumeen. sidoo kale Billy wuxuu noqday mid ay saaxiibo noqdeen Sara iyo faamiligeeda oo ay aad u jeclaadeen Billy tilaabadii uu gabadhooda u sameeyay awgeed.
bilyan nolol ahaan iyo dakhli ahaanba wuu isbeddelay waxaana sabab u ahayd tillaabadii yarka oo uu sameeyey wakhtigaas ay baahidu haysay hadduu gadan lahaa faraantiga hadda muusan heleen fursaddan dahabiga ah naftiisa ayadoo ay u baahan tahay ayuu iska daayey inuu gato balse iska dayntaas ayaa sabab u noqotay noloshiisii inay isbeddesho haddaad asaxaan samayso ama tillaabo wanaagsan aad samayso waxaa hubaal ah inaad helayso abaalgudka tillaabadaas aad samaysay waa sheekada cashirkan aan ka dhaxli karno adiga ahaan maxaa kaaga baxay sheekadan ama aad ka baratay sheekadan halkaas baan ku soo gebagabaynaa intaan haddaad nala soo gaartay muuqaalka like saar waa anigu cabdifataax cabdisaluuye ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh